kulanti wacan daawadayaal halkan waa barteena YouTube-ka ee halbeega wararka waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan ku eegeyno xog la xiriirta sida uu u dhacay dilka Farxaan Qaroole taliyihii booliska gobolka Banaadir ciidamada booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. qaraxa oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Basra oo lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambeysa ee ciidan marka laga baxo degmada Balcad ee loo socdo dhanka beeraha. Farxaan Qaroole ayaa waxa uu watay gaari nuuca xabadda aysan karin ah balse waxa uu qaraxa ka hor ka degay gaarigiisa waxaana kadib ku qaraxday miinada oo dhulka lagu aasay iyadoo wararka qaarkood ay sheegayaan inuu ku istaagay miinada ayaa qaraxday xilli ay ciidamada iyo saraakiisha wadaan howlgallo miina baaris ah oo laga sameynayay inta u dhaxeysa deegaanada Balcad iyo Basra. General Qaroole ayaa waxa uu dhiirigelin ugu tagay ciidamada goobtaas ku sugan ee qaybta ka ah howlgalka Al-Shabaab looga saarayay deegaanka Basra. Generaalku waxa uu sidoo kale ka mid ahaa taliyayaashii hogaaminayay howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ee ka socda agagaarka deegaanada dhaca duleedka magaalada Muqdisho isla markaana isku xira gobolada labada shabeelle ee Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. Sidoo kale qaraxa ayaa waxa dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid ah askarta ka tirsan ciidanka dowladda oo u badnaa ilaalada gaarka ah ee General Qaroole. Mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay isla markaana ka tacsiyeeyay geerida taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Qaroole oo ahaa nin dhalinyaro ah isla markaana shaqo badan ka qabtay intii uu ku jiray ciidamada. Kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas'uuliyadda qaraxa uu ku geeriyooday Farxaan Qaroole. Dhanka kalena hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa war ka soo saartay geerida taliyihii booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ku geeriyooday qarax ka dhacay deegaanka Basra ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qoraalka ay NISA soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa waxaa lagu sheegay in Farxaan Qaroole uu shahiiday isagoo xaq ku diriraya. Allaha u naxariisto taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole. Farxaan waxa uu shahiiday isagoo xaq ku diriraya naftiisana u hibeeyay sidii dalka iyo dadka looga dulqaadi lahaa cadawga khawaarijta ah ee ku soo duulay ayaa lagu yiri qoraalka lagu daabacay barta Twitter-ka ee NISA. Hay'adda NISA oo inta badan aanan ka hadlin arrimaha aan si gaar ah u qusaynin hay'adda ayaa sidoo kale qoraalkeeda waxa uu muuqdaa xaqiijintii ugu horeysay ee ka timid dhanka dowladda ee ku saabsan geerida General Qaroole. Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole ayaa waxa uu ku dhintay qarax nuuca miinada dhulka lagu aasa ah oo ka dhacay duleedka deegaanka Basra gaar ahaan aaga laba buundaale oo ah barta kontarool ee ugu dambeysa ee ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin marka laga baxo degmada Balcad ee loo socdo dhanka beeraha. Generaalka ayaa wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in uu Basra u tagay in uu markaa la soo kulmo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad kaasi oo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa dhanka amniga ee waday howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee looga saarayay deegaanada aaga Basra ilaa iyo beerta Cali Mahdi oo isku xira labada gobol Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Mas'uuliyiin dhowr ah oo ay ka mid yihiin madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir sidoo kalena ahaa taliyaha ciidamada booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad. Marka laga yimaado tacsida madaxda dowladda sida ra'iisul wasaaraha, taliyaha booliska, wasiirka amniga, gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha, waxaa maqaal dheer oo qoray taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda uu qornaa sida tan. Fahad Yaasiin ayaa waxa uu faalo kooban ka qoray shakhsiyadda General Qaroole oo ka mid ahaa ciidamada booliska Soomaaliya. Wiil dhalinyaro ah oo gaaban oo misana caata ah oo haddana baryar bashaash ah sida magaciisa ka muuqata aad farxaan u ah fariidnimona u dhashay fiiro dheer hadal yar misana qorshe dejisan kara qarankiisa iyo madaxdiisana daacad u ah dhiiggiisa iyo dhididkiisana u horay dalkiisa godkii jannadana u galay insha Allah isaga oo difaacaya sharafta iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu bilaabay qoraalka uu Fahad Yaasiin kaga hadlayo shakhsiyadda General Qaroole. Magaciisa siduu u faafay, siduu u jinyaraa iyo da'diisa siday u yareyd intaas kaliya sabab uma noqon karin darajada uu gaaray ee waxa uu maqaam sare ku mutaystay daacadnimada, howlkarnimada, wadaniyadda iyo qaran jacaylka qalbigiisa ku abuurnayd. Waxa uu ka mid ahaa dhowr dhalinyaro ah oo aan ku bartay shaqada amniga iyaga oo ah saraakiil dhexe
wuxuuna aad u jeclaa inuu mar walba wax barto oo uu aqoon ciidan kororsado. Waxa uu qayb ka ahaa ciidankii laga wareejiyay nabad sugidda ee loo wareejiyay dhanka booliska. Ma uusan iska dhigin sarkaal xil raadinaya, ee wuxuu la xarooday askar tababar loo xareynayay oo lagu aas-aasay ciidankii Haramcad. Waxa uu galay dufcaddii tababarka ku qaadatay Xamar iyo Turkiga. Waxa uu soo laabtay isagoo helay aqoon boolis iyo tababarka howlgallada gaarka ah, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad. Waxa uu lahaa sifo ay aad ugu yar tahay hoggaanka ciidanka, taasoo ah in uu saaxiib dhow la ahaa ciidanka uu madaxda u yahay iyo in uu daacad u ahaa qarankiisa. Dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray intaba si daacad ah ayuu ugu gudanayay shaqada qaran, waana sababta dowladdii timaadaba ay u aamintay oo uu mustaqbalkiisa mar walba horumar u gaarayay. 3 qolo ayaa mudan in aan uga tacsiyeeyo geerida xanuunka badan ee ku timid walaalkeen halyey Genaraal Farxaan Maxamuud Qaroole. Qolada koowaad waa qoyskiisa oo ay ugu horeeyaan waalidkiisa, xaasaskiisa iyo carruurtiisa. Waxaan leeyahay geeridu waa xaq ee samir iyo iimaan Alle ha idinka siiyo, marxuumkana jannadii Alle ha geeyo, ilmihiisa iyo qoyskiisana Alle ha dhowro oo barakeeyo. Waalidkiisana waxaan si gaar ah u leeyahay qadarta Ilaahay raalli ku noqda, rabbigii abuuray ee koonkan keenay baa haddana naga ceshaday. Qolada labaad waa madaxweynaha iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne, waxaan kula qaybsanayaa xanuunka iyo tacsida geerida ku timid Genaraal Qaroole oo maanta shahiiday isagoo gudanaya waajibka qaran ee aad fartay oo ah la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne, samir iyo iimaan Allah kaa siiyo. Waxaan ku rajaynayaa inaad ku guuleysato horumarinta tayada ciidanka iyo nabadeynta qarankeena. Sidoo kale ciidanka booliska ee uu ka mid ahaa Genaraal Farxaan, waxaan ku sii adkeynayaa in geerida shahiidka Farxaan ay ku dhaliso dhiiranaan iyo dhiigga iyo dhididka in loo huro dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Qolada saddexaad waa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ogaada in dalkii ay u kaceen dhalinyaro wadaniyiin ah, leh xirfad iyo tababar ciidan oo sare, qarankoodana daacad u ah, kana mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Sidaas darteed, boqolaal Farxaan oo kale ah oo booskiisa buuxiya, shacabkoodana difaacan waan leenahay. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa in madaxda qaranka uu haleeshiiyo in ay soo saaraan awoodda iyo tayada dhalinyarada kor u qaadi karta rajada iyo niyadda shacabka Soomaaliyeed. Walaalkay Farxaanow, waan ogahay inaysan ku soo gaaraynin fariintan, laakiin waan ku khasbanahay inaan kuu soo diro. Farxaanow, inaad jid xaq ah ku dhimatay, inaad dalkan daacad u ahayd, inaad sarkaal qaran ahayd ood ka sarreysay siyaasadda. Waxaan ku gartay madaxdii ummadda Soomaaliyeed oo dhan khilaaf kasta oo dhexdooda yaalay intay gees isaga dhigeen. Waxaa mideeyay inay ku wada duceeyeen, ku wada ammaaneen, iyaga oo ku wada jecelna aad shahiiday. Naftaadii dalka aad u hibaysay, geeridaadiina dadkay mideysay. Rabbigay jannada guri ha kaaga yeelo, dembigaagana adduunna xasanaad ha kuugu bedelo, annagana gadaasha eebbana ma fidneeyo, ayuu kusoo gabagabeeyey qoraalkiisa agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasi oo qoraal kooban ka sameeyey shakhsiyadda Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir, ahaana taliyaha ciidanka booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad. Genaraal Qaroole ayaa ahaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon, isla markaana ku ammaanan shaqooyinka qaranka ugu idman yahay sida ay ku warrameen qaar ka mid ah saraakiisha saaxiibka dhow shaqada kula ahaa. Maanta ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho, waxaana salaada janaasada ku dukan doona madaxda qaranka ugu sareysa oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda, gudoomiyaha golaha shacabka, gudoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Waxaana lagu wadaa in lagu aaso qabuuraha isbitaalka ciidanka booliska Soomaaliya ee Madiina.